aabba maxamed cabdi xaashi loona garan og yahay diini waa aabba muddo dheer ahaa shaqaale dawladeed 1975 ayuu bilaabay shaqada dawladda hoose magaalada Boorama aabba maxamed cabdi xaashi diini oo maanta aan kula kulmay mid ka mid ah hoteelada magaalada Boorama ayaa waxa uu sheegay in muddo 7 bilood wax mushaar uusan qaadan joojinta mushaarka iyo waxa uu sheegay inay tahay cunsuriyadu kala kulmay meeyirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi maadaama dhibane maxamed xaashi cabdi diini uu deegaan ahaan uusan ka soo jeedin degmada Boorama waxa weeye wax adduunya oo hantii lagu leeyahay konton iyo sano shaqeynay waxa weeye ma jirto shan buug baan hayay shantii buugna waxa u dhigay arday yaa u dishay ilaa hadda wuxuu yiraahdaa buugtii markii ninka hadda waa buugtii looga sheegay hanuunta waxa weeye wuxuu ugu sameeyay cusuriyad waxaan reeboon uga baran ka judub iyo ninka waa laba nooc Soomaaliyeed ee kaasna waxa weeye mushaarkii kordhiyay ummadda waxa weeye shaqaaleeyanaha maanta xulka ka degan aan shaqada laga fursiyay xilkii laga qaad shaqada qaybta cashuuraha gurtana ma ilaa aqoon reeboorba afdal ma jirto ilaa sayra ilaa loo haya waxa weeye wuu cusriyay mushaarkii baan ku leeyahay imka bishii lixaad baa ii socota oo mushaar aan qaadan sababta inta chief waa bukay waxa weeye ima soo dul istaagin shaqadiisina waan ahay war maxaa qabtaa ima oran wuu xiray shanta buug wiigu haystay shantii buugna waan u keenay percentage aan ku lahaa 30% baan ku lahaa ima siin wuu haystaa mushaarkii wuu haystaa waxa weeye wuxuu baday ciili caro colaad uma qabo dadka Soomaaliyeed wiilkii awdalaanahay Boorama deganahay guriga ku leeyahay ninkaas wuxuu igu sameeyay waxa weeye waxaan arag la maqbay igu sameeyay aabihii oo meeyda iyo abtidii noo dhibin aan wax ka aasaarin oo lacagtooda isku aasay aabihii waxa weeye wuu dilay wuu karaama siin waayay bini'aadamna iga soo qaadi waayay waxa ummadda islaamka lagu sameeyay igu sameeyay ilaa yoom hada waxa uu sheegaya dawladda Soomaaliland in cusriyay waxa weeye 550 qof oo shaqaalaha shaqeeya aanu beega dhax saaray oo maraxaan baatay leey waa ruwaay maxamed maraxaan ma bagac iga leeyahay laakiin afdal baan waa deganahay wadaafay gabar deegaanka ka qaba waxa weeye wuu cusriyay waxaan ka cabanaya waxa weeye intaas oo mushaarkeygii oo waayay mushaarkeygii oo waayay percentage aan ku lahaa lacagta leeyahay siin waa la cusriyay ciidi carar la jifa waxa weeye wiligiina waxa weeye ninka shaqaalaha ugu horeeyana 1975 baan shaqada ka bilaabay 1975 ka bilaabay shaqada waxaan ka shaqeysay immigration officer banka waxaan ka shaqeeyay Hargeysa luqayanka taliyaan nabsiyada wajaalanka waxa weeye inta soo shaqeeyay 1975 baan shaqada bilaabay ilaa yoom hada waan shaqeeyaa waxaan ku sheegay la qaadan daro intaasoo kaliya ma ahayn sidoo kale aabba cabdi xaashi diini waa aabba xanuunsanaya sidoo kalena waxa uu sheegay in muddo 20 cisho uu ku xidhnaa saldhigga dhexe magaalada Boorama xadhigiisa ayuu igu sheegay inuu ka dambeeyay meeyirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi magdalku ii dilay wuxuu ii dilay anoo shaqeynaya iyo shaqada iga joojiyay xariga igu saldhigga booliska waa la xiraa dinta laga xidhnaa waa taasha ku xidhan saldhigga booliska warshada bugta isii oo xisaabiye inuu yiraahdo soo waajib ma saldhigga igu waxaan ku sheegaya waxa weeye arxan male markii dambe ayaa ku soo daayay mar haddii isagu waxa ay soo daayay jaamac la yiraahdo jaamac Yuusuf la yiraahdo iyaga soo daayay saldhigga booliska Cabdiqaadir iyo Cabdiwahaab oo kamid ah dhalinyarada magaalada Boorama oo iyaguna goobtaasi joogay ayaa waxay si dareen leh uga hadleen dhibaatada haysata aabahan waxaanay ka dhawaajiyeen wuxuu noo sheegay maxamed cabdi xaashi inuu ka soo jeedo dhalasho ahaan degmada Caabudwaaq laakiin uu Boorama inta oo dhan ku barbaaray qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed ah dawladda hoosena ka hawlgeliyay muddada inta 75 ilaa maanta
ahna nin reer Boorama oo rasmi ku ah oo degan oo xaaskiisa iyo carruurtiisuba reer Boorama yihiin waxa nasiib darra halkan isagoo ku ooyay oo ilintu ka socotaan kula kulanay wuxuu noo sheegay inuu 7 bilood mishaarkiisii dawladda hoose una siin maayo waxay soocay oo midabta kooray waa nasiib darro in degmo la hormariyo suugaysay raawda loo yahay Booramo de duqeydii ba saa oo soo ilmaynaysa ninka duqeydii ka ilmaynayso oo malayn ma inuu degmo hor sidoo noo sheegay waxa hayb soocay oo midabta kooray oo 9 shaqaalaha ka dhax saaray kliigi maayirka hadda degmada ku soo noqday anigu maayiru ma aqoonsaniye maayir ku sheeg baan u aqaana ninkaas hayb soocay waxaan bartan kula kulanay isagoo ooyaya oo ilmadu ka daayso anagu rajo iyo ifafaale kama qabno maayirkan waqti xaadirkan waqtigiisu gabaabsiga galay waa Imraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.